Mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ugu baaqay bulshada deegaankaasi inay ka qayb qaataan nabadgelyada deegaankaasi lana shaqeeyaan laamaha ammaanka sida uu warkaasi noogu soo diray wariyaheena Axmed Nuur Yogal. Mas'uuliyiinta laga soo doorto gobolkan Waqooyi Bari ee dalkan Kenya iyo waliba laamaha ammaanka ee gobolkan Waqooyi Bari ayaa waxay ugu baaqeen shacabka ku dhaqan gobolkan Waqooyi Bari in ay ka qayb qaataan sugida ammaanka isla markaana ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ee ka howlgala gobolkan Waqooyi Bari si markaasi looga hortago waa sidii hadalka u dhigeen mas'uuliyiintan weerarada ka imaanaya Al-Shabaab. Mas'uuliyiintan ayaa sheegay inaysan u dulqaadan doonin in la carqaladeeyo horumarka gobolkan isla markaana dhibaatooyin loo geysto bulshada ku dhaqan gobolkan Waqooyi Bari. sidoo kale mas'uuliyiintan ayaa sheegay inaysan marnaba ogolaan doonin in dhibaatooyin loo geysto dadka kale ka soo jeeda dalkan Kenya ee ku nool gobolkan Waqooyi Bari. Mas'uuliyiintan ayaa waxay intaasi ku dareen inaysan suurtagal noqon karin in gudaha gobolkan dhibaatooyin markaasi ay ka sameeyaan Al-Shabaab iyagoo markaasi sheegay intaasi carqalad ay ku keenayso horumarka gobolkan. Mas'uuliyiintan ayaa si weyn uga codsaday dadka gobolkan Waqooyi Bari ku nool in wax kasta oo markaasi carqalad ku ah dhanka ammaanka ay ku soo wargeliyaan laamaha ammaanka si markaasi looga hortago arintaasi dhibaatada ku haysa dhanka ammaanka. Mas'uuliyiinta ayaa sheegay inaysan marnaba suurtagal noqon doonin qof ka imaaday meel kale waa siday hadalka u dhigeen iyagoo markaasi oo la jeeday Al-Shabaab inaysan dhibaatooyin ka geysan karin gudaha gobolkan taasina ay dhibaato ku tahay shacabka ku dhaqan gobolkan Waqooyi Bari iyo waliba guud ahaan dalkan Kenya. Mas'uuliyiintan ayaa waxay intaasi ku dareen in cid kasta oo ka hor imaanaysa horumarkan gobolkan ay gacan bir ku qaban doonaan. Hadallada mas'uuliyiintan ayaa waxay ku soo aadeen xilli muddooyinkii ugu dambeysay dhibaatooyin dhanka ammaanka ay ka dhacayeen gobolkan Waqooyi Bari taasi oo laamaha ammaanka ee dalkan Kenya ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyaan Al-Shabaab. qaar ka mid ah mas'uuliyiin annaga Soomaalina waa mid waxaa la laba indhood maxaa la jiray kalmo hurdaan Soomaha oo isku hurdaan haddii Soomaali dhibaataysan tahay annagana waa rafaadsannahay ma runta mi sheego waxba Soomaaliya la kala qaadin Soomaali meel ay joogto waa mid kan Soomaaliya joogo iyo kan inta joogo isku mid baan marka waxaa fiican dad Islaam baan nahay oo daris ah oo wada dhashay inaan horta soo sheegay arsiga nabadgelyada aan aad u ilaalino Soomaali waxay dhaqaa habar karis maxaa la jiray haddii maanta dhadhaab guwato ana wax dan ugu jirto malaha haddii faafi guwatana wax dan kugu jirto malaha marka midda koowaad soo arsiga sheegay ninkan walaalka anaga waa nin Soomaali ah asagana u xil saaran amniga North Eastern kulli Soomaa marka waxaa fiican inaan la shaqeyno asaga haddii asaga la shaqeyn wayno annagoo dhan baa ceebaysan macal asaga waan ceebaynay faafi sidoo kale meelo waxa jira aan la mari karin wadooyin qaar way xiran yihiin sababtoo ah balaa dhulka la gelinaya baabuurta la qarxinaya waxa ku dhamaadaya waa dadka anaga haddii askar noqoto haddii noqoto shacab waxa rafaadsan waa anaga waxa ooyni waa anaga hadana faafi dhadhaab iyo ijaarabo runtii sidoo kale way sababtan waxa keenaysa macal wajiga south wax alla wixii la leh xuduud Soomaaliya marka anaga waxa muhiim ah dib iyo qarax iyo shido inuu wadanka Kenya ku samay ma ogashin gacanta ay tusa ina soo galeen gacanta ay tusa wasiirka tusa dadka dhaxda naga habeenay dharaar socdo maxaan ku sameeynaynaa war dadka dhaxda naga socdo ifo habeenay dharaar wareegana war dhagaxle wareegana war xagar dheer wareegana war kaambi coos wareegana laga yaabaa qaar waa wiilasheena qaar waa ilma adeerteena qaar waa qaraabadeena sheegno dawladda aan la shaqeyno haddii aan dawladda la shaqeyn wayno nabadgelyadana way baabaaysa. gobolkan Waqooyi Bari oo ah gobolka ay Soomaalidu ka degto dalkan Kenya isla markaana xilligan ka kooban 3 ismaamul Garissa Wajir iyo waliba Mandera ayaa waxaa muddooyinkii dambe ay la daaladhacayeen dhibaatooyin dhanka ammaanka ah
taasoo ilaamaha ammaanku ay sheegeen inay ka dambeeyaan al-shabaab. qaybo badan oo ka mid ah gobolkan waqooyi bari ay wax ka dhigayeen macallimiin ka soo jeeday qaybaha kale ee dalkani Kenya ayaa waxay ka baxeen goobihii ay iskuulada ka dhigayeen, taasoo macallimiintu ay ku sheegeen in dhibaato dhanka ammaanka ay ka jiraan. sidoo kale xilliyada qaar waxaa dhaca in isu socodka gaadiidka uu hakad ku yimaado kadib markii cabsi laga qabo in weeraro ay ka yimaadaan dhanka al-shabaab. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gol TV-ga caalamiga ee Royal Dhadhaab gobolka waqooyi bari ee Kenya.